barigii hore dadku waxay isku baran jireen si toos ah, indhahoodu isqaban karayaan, codkooduna isgaari karayo. iyadoon laga tagin taas, haddana dadka inta u badan waxay iska bartaan waayadan dambe baraha bulshada. waxaan ku wadaa qaab qurux badan ood u baran kartid qof walba ood rabtid inaad baratid, kuna yeelan kartid saameyn togan noloshiisa. ila soco. barashadu waxay ku bilaabataa bandhig. barashadu waxay ku bilaabataa bandhig. waxaa la yidhaahdaa alif kuu hagaaga albaqra ku gaadhsiiya. barasho bilowgeedii kaa xumaaday, dhammaadkeeda maxaad sugaysaa? marka qof aad doonaysid inaad baratid, ha noqoto si toosa ama ha noqoto baraha bulshada, haddii aad su-aalo ku bilowdid, qofkaas wuxuu bilaabayaa inuu kaa cararo ama uusan kuu jawaabin. dan walba ood qofkaa ka lahaydna waxay noqonaysaa dib inaad u laqdid. tusaale ahaan, anigu haddaan doonayo adiga inaan ku barto, marka hore waa inaan ku bilaabo bandhig. waa inaan ku dhaho magacaygu waa heble hebel, waxaan ku noolahay wadanka, waxaan qabtaa ama ka shaqeeyaa waxaas, waxaan doonayaa inaan ku barto. intaasu waa hordhaca. usoo daadeg ujeedada. u qor ujeedada aad qofkan u baranaysid. barashaduna way noocyo badan tahay. waxaan doonayaa inaan xidhiidh kula yeesho, waxaan doonayaa inaan kula shaqeeyo, waxaan doonayaa inaan saaxiibo noqono, waxaan doonayaa inaan walaalo noqono. dan walba ood qofkaa ka leedahay ama ujeedada qofkaas aad u doonaysid inaad u baratid, u reeb, u qor. maxaa yeele qof walba wuu jecel yahay qofka baranaya ujeedada uu u baranayo inuu ogaado. markaad sidaa qofka isugu soo bandhigtid, wuxuu bilaabayaa qofka inuu isu kaa furfuro, inuu isagu noloshiisa adigoon weydiinin su-aal isagu uu kuu sheego wax walbood uga baahan tahay inaad noloshiisa ka ogaatid qofkaas. tan kale farqi aada u weyn baa u dhexeeya waxaan doonayaa inaan ku barto iyo waxaan doonayaa inaan isbarano. maxaa yeele laba qof marka ay isbaranayso macluumaad bay isdhaafsanayaan, laakiin qof markuu baranayo dee keligiiba macluumaad ka qaadanaya ka dhigan tahay. haddii qof aad baranaysa aad ku dhahdo waxaan doonayaa inaan ku barto, oo qofkaasi kuugu jawaabo anigu cilmi aad daalacanaysa ma ihi, waxaad ogaataa qofkaasi inuu ku siiyo jawaabta sax. maxaa yeele cilmiga isagaa la bartaa ee cilmigu qofka ma barto. iyada oo ujeedadu ay mid tahay, haddana way kala tagsan yihiin micno ahaan. maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa hadal la kala odhan og, eebana la kala baryi og. mar walba oo doonaysid qof inaad baratid, ha dhihin waxaan doonayaa inaan ku barto, dheh waxaan doonayaa inaan isbarano. taasaa saxsan. marka la dhaho baraha bulshada, qof walba oo baraha bulshada isticmaalo wuxuu leeyahay kumanaan saaxiib oy baraha bulshada ku midoobeen. kumanaankaa saaxiib waxaa laga yaabaa maalin walba 1, 2, 3 ugu yaraan inay maalin walba usoo gudbistaan fariin. fariintaas dhan walba ha noqoto. fariimaha soo dhacaya ee qofkaas soo gaaraya ee faraha badan maxay kaga duwan tahay fariintaadu fariimaha faraha badan? fariintaadu waa inay noqoto dhammaanba fariin ka duwan fariimaha faraha badan ee qofkaas soo gaaraya. hadday noqoto dhanka qoraalka, hadday noqoto eray doorashada, wax walbaba inay noqoto fariin ka duwan dhammaan fariimaha kale, si qofkaasi markuu fariinta arko uu isaga laftirkiisa u jeclaysan karayo inuu kaaga jawaabo. markaad u dirto qofkaas fariinta, haddii laguu soo jawaabi waayo, uga dir fariimo kala duwan baraha bulshada sida Facebooka, Snapchatka, Instagramka iyo qaybaha kale ee baraha bulshada ku xidhiidha. una dir waqtiyo kala duwan. maxaa yeele inagu Soomaali haddaan nahay, waxaan nahay dad dunida aada ugu baahsan oo kala tagsan. dadku markay laba wadan ku kala nool yihiin ama laba qaaradood ku kala nool yihiin, waqti ahaan way kala duwan yihiin. marka tusaale ahaan maanta haddii aad fariin qofka u dirtay aroortii, haddaad u dirtay, maalinka labaad waxaad u dirtaa duhuradii meelahaas markay tahay, maalinka saddexaad haddii laguu soo jawaabi waayo casaradii u dir. waqti kala tagsan si qofkaas ay fariintaada u gaari karayso, waqti uu jaanis hayana aad ugu beegmi karayso ama uu kugu soo jawaabi karayo. haddii laguu soo jawaabi waayo, kama dhigno qofkaasi inuu yahay qof xun. maxaa yeele dadka qaar waxaa jira qof markay fariin u diraan ama laba u diraan, haddii looga soo jawaabi waayo markaba waxay geliyaan diiwaanka dadka xunxun. qofkaas waxay ku saleeyaan inuu yahay qof xun. ma ahan qof xun, qofkaas wuu mashquulsan yahay, waxaa laga yaabaa inuu xanuunsan yahay, inuusan khadba u badnayn. waxaad kalood ogaataa mar walba inaad uga jirto qofka noloshiisa lambarada ugu dambeeya. maxaa yeele waxaa tahay agtiisa ka tahay qof lama yaqaanaana, kuma yaqaano, agtiisa qiimo kagama fadhidi inaad fariin usoo dirto, inaad 100 usoo dirto. tan kale, adigu sida aad xor ugu tahay waqtigaad doonto inaad u wacdo ama fariin ugu dirto, sida si leeg buu isna xor ugu yahay waqtigu danmoodo qofkaasi inuu kuu soo jawaabo. ha ka qaadin xornimadaas. ha weydiinin su-aalo shakhsiya. waxaa jira dad markay qofka sida u bartaan salaamu calaykum markay u qoraan, waxa ku xigta ay tahay su-aal.
magacaa, halkeed joogtaa, maxaad qabataa, qabiilkeed tahay, familku meequu ka kooban yahay, meeqaad jirtaa, iyo su'aalo fara badan oo lamid ah. qofka markaad su'aalo fara badan weydiisid, adigu masirdoon baa tahay mise tirakoob baad ku jirtaa oo waxbaad tirakoobaysaa. marka aad qofka su'aalo badan weydiisid, markaba qofku wuxuu bilaabay inuu kaa shakiyo, inuu dib u guratayn sameeyo. barasho halowdayna bilowgeedii halaabayna dhammaadkeeda maxaa ka sugaysaaba. si lambarkaaga hana ka wicin video call. maxaa yeelay qofka markaad doonaysid inaad lambarkiisa ka qaadatid ama ciwaankiisa ka qaadatid, haddaad ku dhahdid lambarkaaga isii, waxaa laga yaabaa inuusan ku siinin qofkaas lambarkiisa. inta lambaradu waxay ka mid yihiin waxyaabaha gaarka ah, uusan qofna jeclaan lambarkiisa inuu qof uusan aqoonin uu siiyo. marka adigu si lambarkaaga, markaad siisid lambarkaaga ku dhahdid waa ka lambarkayga ama ciwaankayga qoro, waxaan rajaynayaa inaad soo wacdid. qofkaas wuxuu dareemayaa kalsooni buuxda, waxayna u badan tahay qofkaasi inuu kula soo xidhiidho adiga. hana ka wicin video call qof aadan aqoon u lahayn. maxaa yeelay video call marka laga soo tago dumarka, gabadh markaad ka wacdo hadda video call, waxaa laga yaabaa inaysan kaa qaban haddaadan aqoon u lahayn. xataa haddaad aqoon u leedahay, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay iska madax qaawan tahay, inaysan diyaar u ahayn video call inay qof kala hadasho. si guudna dadku ma jecla qof aysan aqoon u lahayn oo ku cusub ama lambar ku cusub oo video call ka soo wacay inay ka qabtaan. qofna ma doonayo wajigiisa in uu arko qof uusan aqoon u lahayn. marka ha ka wicin qof aadan horay u aqoonin ama aqoon fiican aysan idinka dhaxaynin video call. ka dheerow been iyo jilitaan. noloshaada weligaa ha ka been sheegin. noloshaada, shaqadaada, cilmigaaga, shakhsiyadaada in midna ha ka been sheegin. hana qaadanin oo ha ku noolaanin door shakhsiyad ama door qof kale uu leeyahay. waxaa la yiraahdaa laafiya aadan u dhalan laba talaabo lama dhaaftid. marka haddii aad iska dhigtid shakhsiyad aadan adigu lahayn oo isku daydid inaad jishid, muddo kooban kadib qofkaas wuxuu ogaan qofka aad sheeganaysa inaad tahay inaadan ahayn. marka ahow adiga, ahow adigu oo isku kalsoonow. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday. muuqaalka haddii aad ka heshay, suulka saar si aad noogu soo biirto, subscribe taabo. wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiya qaybta hoose ee faallada noogu reeb. wayna muuqaalka kan xiga insha Allah. nabad iyo caafimaad baan idinka tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.